munaasabad bulshada loogu soo bandhigayay waxqabadka maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay degmada Yakshiid iyadoo uu ka soo qayb galay duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijneeriso gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir maamulada degmooyinka iyo mas'uuliyiin kale Cabduqaadir Cabdi Dinaxo oo kamid ah fanaaniinta munaasabada ka qayb gashay ayaa goobta ka qaaday hees gedisay dareenka dadkii munaasabada ku sugnaa qalbigaygu muujabin maskaxda qaafil kama noqon qayrkayna kama harin qaangaar barbaaro qarankiyo dadkiisii qiirada wadaninimo waxaan ahay la qaybsadaa gudoomiyaha degmada Kahda Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil iyo gudoomiyaha degmada Yakshiid Cabduwali Cabdullaahi Maxamed ayaa munaasabada ugu horeen ka hadlay waxaan leenahay hambalyo madaxda cusub ee reer Yakshiid walaalkay Cabduwali waxaan leeyahay gudoomiye horiso degmada Yakshiid ayaa iska dhamaystirta ayaa ugu qadaro reer Yakshiid waxaan leeyahay haddii ay yimid garab istaaga gacan siiya idinkuna waxaan leeyahay suuqyadii iyo wadanimadii iyo Soomaalinimadii lagu yaqiin ku garab istaaga kolley reer Yakshiid waxaan u maleynayaa in ay isyaqaanaan cidda ay yihiin iyo sida ay ka yihiin 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaan idinka rajaynayaa sida aad aheedeen si ka fiican inaad naqataan oo aad u diyaar garowdaan shaqo gobolka Banaadir ugu talagaleen 17 degmo sanadkan cusub ee 2019 in la qabto si aan u istaagno gobolka Banaadir inuu noo noqdo meel aan ku hiirsano xagga nabadgelyada iyo nadaafadda iyo arrimaha bulshada intaba abwaan Maxamed Xuseen Awliyo oo kamid ahaa mas'uuliyiintii munaasabada ku sugneed waxa uu la dardaarmay bulshada caasimadda kuwa siyaasiyiinta marka oo raba inay kala qaybiyaan oo raba inay dalka masawir qalad ka bixiyaan oo Ilaah baan idinku dhaarshay caaway 30 sano ka hor meesha ugu dambeysay ayaan caawa taaganahay Tawfiiq oo xaafadda Yakshiida war ma nabad baysan ahayn miyaysan nabad ahayn Muqdisho miyaanaan idin ugu jeedin haddaba waxa la rabaa inaan kambaniyadu idiin imaan waxa la rabaa ganacsiga in la xuriyaamiyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Camri Jakeyti ayaa bulshada reer Yakshiid ku bogaadisay in ay la shaqeeyaan maamulka degmada haday bulshada waxaan ka sugaynaa marka inay gudoomiyaha la shaqeeyaan ee garabkiisa istaagnaadaan ee ayaga hogaamiyaan ee noqdaan bulsho aan ku ogaas jecel iyo isku duubni tanna inay si laba jibaarto insha Allah aada idin soo dhaweynaa hambalyo idin leeyahay isbeddelka cusub gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijneeriso ayaa si kooban u sharxay waxyaabihii maamulkiisa u qabsoomay muddadii 2018 runtii annagoo shacabka kaashanayna waxaa noo hirgalay arrimo fara badan dib u dhiska wadooyinka oo aan 6 wado oo laami ah ka hirgelinay caasimadda Muqdisho waxaa noo hirgalay inaan dhagax dhigno isla markaana aan hirgelino mashruucyo fara badan oo ay ka mid ahaayeen mashruuci lagu dhisay degmada Wadajir tii degmada Yakshiid isla markaana aan dib u dhis ku sameynay gurmadka degdega ah oo aan ku soo kordhinay 2 xarun oo bulshada gurmad degdega loogu fidiyo ee degmada Hodan iyo Wadajir waxa kale oo muddadaas kooban noo hirgalay inaan wax badan ka qabanno hagaajinta maamulka maaliyadda oo sida hadda idin sheegay 52% aan korar ku sameynay taasoo ku timid juhdiga shacabka iyo maamulka iyo degmooyinka iskaashanaya inay noo suura gashay inaan adeegyadaas iyaga ah bulshada gaarsiino Nuur Saciid Taliil SN TV magaalada Muqdisho